dhibaatada ay yeelan karto haddii khaladaadka ama wax un saxaafadda ka dhacay ama ay tabisay loo qabsado oo loogu qabsado qaab laga dhigayo inay tahay dembi camal. waxaan aaminsanahay in saxaafad xor ah oo wax dhaliisha oo aan cabsanin oo haddana mas'uul ah in dalkan uu u baahan yahay oo tabisa dhammaan waxyaabaha dadweynaha Soomaaliyeed ay isweydiinayaan oo ay ka mid tahay doorasho ma dhacaysa mise ma dhacayso. haddii doorasho ay dhacayso waqtigeeda ma ku dhacaysaa, sidee ay noqonaysaa doorashada dhacaysa. in doodahaas waxaa muuqata saxaafaddu iyo wariyaashu ay ka cabsanayaan hadda oo ay muuqato haddii mawaadiicdaas ay bilaabaan inay ka doodaan ay ka baqayaan saxaafadda in dembi laga dhigo oo loo dembiyeeyo. waxaa saxaafadda sidoo kale muddaba dhibaato ay kala kulmaayeen waxyaabaha ay timinayeen oo ay ka mid tahay cudurka COVID-19 oo ogtihiin Cabdicasiis Gurbiye qormo uu ka qoray oo ku saabsaneed madaxweynaha in xabsi uu ku mutaystay oo ugu dambeyntiina xukun aan aaminsanahay inuu yahay cadaalad darro lagu xukumay muddo hadda laga joogo 2 usbuuc. marka wariyaasha la qabsado waxaa la isticmaalaa xeerka la yiraahdo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. xeerkaas oo 1964 soo baxay duqoobay isla markaana ah xeer aan la jaan qaadi karin Soomaaliyada casriga ah ee maanta aynu joogno. waxaan muddo badan dawladda iyo dadka sharciyada yaqaan kala doodeynay sida xeerkaas laga yeeli karo. nasiib wanaag madaxweynaha isaga mar Twitterkiisa ku qoray dawladda baryahan social media la yiraahdo dawlad social media dawlad xagaas ka nool ay noqotay marka isaga Twitterkiisa ku qoray in xeerkaas laga laabanayo bishii May 3deedii. waxaan filaynay in xeerkaas meesha laga saaro oo aan mar dambe lagu dhaqmin gaar ahaan arrimaha ku saabsan saxaafadda hadalkeeda iyo waxtabinteeda iyo wariyaasha arrimaha la xiriira. laakiin waxa ogtihiin abuuji arrinta loo haystay waxay ahayd isla arrin ku saabsan ama loo adeegsaday qodobo ku saabsan xeerka ciqaabta. weli waxaan rabaa inaan halkan ka sheego maanta qodobka koowaad ee abuuji lagu eedeeyay warqadda xeer ilaalinta ka soo baxday ee naloo keenay. qodobka koowaad waxaa ku qoran qodobka koowaad faqradiisa 64 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida. qodobkaas waxaa ku qoran khiyaano qaran. abuuji inuu galay khiyaano qaran ayaa ku qoran. waad dareemi kartaan dhibaatada ama culayska ay leedahay marka suxufi lagu eedeeyo inuu galay khiyaano qaran. wax weyn oo la yaab leh oo shoog ah ayay nagu noqotay marka aan aragnay warqadda xeer ilaalinta gaar ahaan arrintaas ay soo saartay. arrimahaas ma ay dhammaan. wixii dhacay hadda waa dhaceen waa laga soo gudbay dhib kastoo aan ka soo marnay labada wariye iyo kiisaskii ka horreeyay. muhiimaddu waxay tahay waan jeclaan lahaa in dadka halkan ka hadlaayana ay xoogga saaraan sida ay Soomaaliya baahi ugu qabto in saxaafadeedu ay ku shaqeyso cabsi la'aan. midda kaliya lagu gaari karana waxaan aaminsanahay xeerarkan ciqaabta ee la adeegsanayo in laga dhaafo. qareennada ayaa nala joogo waxaan marka codsanay haddana rabaa halkan hortiin inaan uga codsado inay nala ololeeyaan oo ay nagula ololeeyaan sida xeerka ciqaabta ee saxaafadda loo adeegsado meesha looga saari lahaa. hoostana aan ka xariiqno hal kelmad oo annagu mar walba aan ku celcelinno oo ah saxaafaddu dembi ma ahan. marka la galab wanaagsan soo dhawaada aad iyo aad ugu mahadsantihiin ka soo qaybgalkiina.